السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بلشوينت الصوماليات أدبان السلام يا سودو هذا شلي إلى يدرهاد وحاد لو ودوداي دونتان أو داد مارتي شعبه أنتي عقل إيو مسكح أنتي اسكو درسدين أي دونتان سميين أو دونتان wax badan noloshooda kamida ay ku badbaadiyeen oo waliba naf iyo maalba ay ku badbaadiyeen waliba doontaan waxa sameeyay waa dad shacab Soomaaliyeed ah dad maartay aqligooda iyo maskaxdooda markay iskaashteen baa sameeyay waxa hadana doontaan u soo qaatay hadalkeeda aad buu u batay doonta markii baraha bulshada la keenay waxa la yiri reer Gedo reer Luuq iyo maartay reer Jubbaland waxa doontid bade dadkaas waxa la yiri markii dawladoodii ay wax ka waayeen ay qayla dhaamiyeen wax kasta sheegeen ay wax waayeen ayay doontaan maskaxdooda iyo aqligooda intay ku keeneen ay har abuureen ayaga ayaa samaystay markaas waxa la yiri nolol bay ku badbaadiyeen naf iyo maal bay ku badbaadsadeen horta halkan waxaan jawaab ka siinayaa dadka dhaxaya dawladoodii markii ay wax ka waayeen mase ay tabar ay ka waayeen ay ayaga isku tashteen dad kale baan halkan jawaab ka siinayaa horta waxaan weydiinayaa ii sheega mase yaa sheega kara mase dadka maanta sheega kariyaa waay dawladda maanta Soomaaliya ka dhisan bay dad wax u tartay mase dad bay wax u qabatay yaa maanta dhixi kara yaa sheegi kara sababtu waxay tahay haday dawladda haday wax qabanayso oo maartay dad biyo dhax fadhiyo noloshooda naf iyo maalba ay badbaadinayso maantay caasimadii ummadda Soomaaliyeed dhaxdeeda biyihii 10 sano ka hor galana ilaa hadda fadhiyaan haday dad shacab ah oo maartay 100 kilomitir dawladda meesha ay jirto mas'aash dawladda degan tahay u jira 100 kilomitir ba haday intay cawaadeen wax kasta sheegan wax loo qaban waayay oo ayaga isku tashteen meeshii la rabay dadka ayaga isku tashtay xooga iyo maskaxda muruqa intay isku darsadeen oo keeneen markabka inta la keeneen oo naf iyo maalba ku badbaadiyeen meeshii la rabay in la dhiirigeliyo oo dadkaasi say maartay nolol badan u badbaadiyaan wax kasta u soo kordhiyaan meeshii la rabay in la taakuleeyo wax loo qabto nin kasto muuqaal buu ka sameystay id kasto ninkii fuus ku raadsanay ninkii muuqaal ku raadsanay nin kasto habuu ka sheegay markaasoo dadkii meelaha qaar waxa arkaysa iyagoo la leeyahay oo maartay dadkii intii kor loo qaaday xataa la leeyahay dadkan waxay sameeyeen $100,000 maartay $100,000 wixii lagu bixin lahaa bay waxay ku sameeyeen wax maartay meeshii ka yar horta Soomaalida markii la joogo afar iskuma ogolo afar dadka Soomaaliyeed dhexdeeda ka sugin horta dadka Soomaaliyeed maskaxdooda iyo maankooda waa laga saaray qof shacab ah mase dadka Soomaaliyeed ba intay maskaxdooda wax ka keensadaan ba ayaga isku tashin karo dadka maskaxdooda waa laga saaray sababtoo ah qof kasto Soomaaliyeed maanta uu aamin la yahay in doon inta leeg ay sameeyaan oo geel ku badbaadiyaan oo naf iyo maalba ay ku badbaadiyaan maanta dadka Soomaaliyeed maskaxdooda way gal la'dahay yani qof kasto liyaab bay la tahay ya qof kasto maanta dadka doontaan sameeyay qof kasto arko liyaab bay la tahay tan labaad oo maartay dadka Soomaaliyeed dhaxdooda ay ugub ku tahay hadii lagu arko qofkaani oo kale markii wax uu soo gudbiyo oo maartay qofkaani oo kale uu wax soo bandhigo dadkii wax ku faa'iiday uu soo bandhigo meeshii la rabay qofka inuu yiraahdo Allah ilaa dad baa noo soo baxay warshad baa noo soo baxday meeshii la rabay qofka in la dhiirigeliyo dabada laga buuqaya waa arrinka labaad arrinka saddexaadna
dadka Soomaali qofkaani oo kale markuu banaanka soo istaago oo wax uu la soo baxo meeshii la rabay in qofka la dhiirigeliyo oo la yiraahdo no waa qof fiican baa tahay intaasaan kugu dhiirigelinay sidaasi madlamada haddana qofkii waxa laga dhigayaa yani qof aan bijirin ya arrinka saddexaadna dunida qofkaani oo kale markuu soo baxo oo maartay qofkaani oo kale markii lagu arko qof soo jeeda mase dad waxa soo saaray markii la arko shacabka dhexdiisa dawladda waxay samaysaa maalgelin qofkaas waxa barasho la siiyaa hadday koox yihiin dadkaasi waa la dhisaa muruqoodii iyo maskaxda ay keeneen waa la maalgeliyaa say dalka markaas ay ku sugayeen si wax ugu soo saaraan dadka waa la maalgeliyaa ya tusaale yar dunida markii la joogo waxaa jirta waxyaabo dunida ka lagu sameeyo mase lagu dhaqdo tusaale sida geela iyo araga iyo marse lo'da oo kale annaka waa dhaqankeena waana dhaqannaa waanu maamulnaa sida loo maareeyo sida loo habeeyo way naqannaa laakiin dunida kale markii la joogo dad waxaa jira Afrika oo kale dad ka qaada oo maartay dhulkaas shaqo u geeya say geela u maamulaan oo lo'da u maamulaan oo geela u maamulaan ariga u maamulaan dadka meesha la geenayo ma aha inay weligooda joogayaan khibradda iyo qaabka howlaha u maamulayaan caqliga wax dhan waa laga qaataa markii dhaqanka ay waxa markii laga qaato ninka dankii lahaa waa lagu gaaray qofka banaanka loo saaray dadkaani oo kale maanta waan hubaa dadkan meeshii waxa ka soo saaray haddii ay ahaan lahayd meel Soomaaliya ka baxsan haday ahaan lahayd waan hubaa dadkan in la maalgashan lahaa oo la soo saari lahaa warshad loo sameyn lahaa oo ayaga maskaxda ay soo saareen dal kale uga ka faa'iideysan lahaa dadkaani oo kale maanta idii ka faa'iideysan lahayd ma jirto sidaas daraadeed dad kale dawladda markii waxa ka waayeen bay waxa qabsadeen war dadka Soomaaliyeed weligood ay ahaayeen dad wax soo saar leh oo maskax leh oo fikirta laakiin waa loo diiday inay fikiraan oo ayagu wax soo saartaan oo ayagu wax qabsadaan waa loo diiday ya dadkan in ayagu wax soo saartaan oo ay fikiraan waa loo diiday maayna Soomaali markii la joogo cid ka fikir badan ma jirto war xagaad ma aragteen ii sheega imase dhalinyaro oo diyaarada soo sameeyay war waxa bay sheegayaan waa farbadan yihiin imase qof la arkay oo shacaba oo maskaxdooda iyo khibradooda iyo fikirkooda intay keeneen ay wax soo saarteen oo dadku wax u soo bandhigeen miyaad aragteen ninkii hebel ahaa oo wax soo bandhigay dawladda qaaday oo waxbarasho free la siiyay miyaad aragteen ma arag warkaada ku daalin muuqaalkii doonto la yaabanaa oo kooban waa kana narsada eedi garabtaale waagee ninkii geli narsada eedi garabtaale gacawada jirkii gooman doontan aad arkaysaan oo geela saaran yahay oo dadka ku tuban yihiin oo guurayso Shiinaas iyo Jarmal iyo Mareykan Ingiriis Hindi ma samayn dad Soomaaliyeed shacab baa sameeyay oo maskaxdooda iyo muruqooda iyo maankooda isku darsaday laakiin maanta waxa la rabay in la dhiirigeliyo horta ha ka sugnina dawlad inay dhiirigeliso ha ka sugnin dadkaasi oo kale waxa la rabay dadkan oo kale waxa dhiirigelin kara oo waxa u qaban kara oo maartay meelihii maskaxdooda muruqooda ku soo saar lahayn dadku dhis lahaa waa shacabka dawladda maanta la leeyahay markii waxa ka rabeen ay waxa ka waayeen sida samaystaan la leeyahay ii sheega war yaa sheega kar maanta dawlad federaal mase gobol hadii ay noqoto ii sheeg xagaad ku aragteen dawlad waxa qabatay
dowladda haddii waxa qabanayso meeshii caasimadii ummadda Soomaaliyeed dowladdii dhexe ay deganeed biyihii 10 sano ka hor ay galeen weli dhex fadhiyaan miyaad aragtay cid wax ka qabatay ma haysan cid wax ka qabatay ma jirto 100 kiiloomitir 200 oo kiiloomitir caasimadii meel u jirto oo biyo ku jiraan inta badbaadinaysa yaa waay caasimadii baa sidaa u taala yaa wax ka qabanaya cid wax ka qaban karta male marka sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed weligood muruqa iyo maskaxda way lahaayeen weligood wax soo saar way lahaayeen laakiin waa ay waayeen cid kala shaqaysa qofkii waxa soo saar dhiirigeliya waa la waayay war hal antaan qof haddii maanta la dhiirigeliyo qof kastoon maskaxdiisa fikir iyo muruq ku hayana maanta qof kasto waxa soo saar wuxuu ku biirayaa qaanada dadka waxa loo qabtay cid kasta maanta waa isku daysanaysaa Soomaaliya isla markiiba korba ay soo bixi lahayd laakiin maanta qof kasto dadka Soomaaliyeed u soo baxa annaga ka daba orinayna oo ka daba qaylinayna waxaba ka soo qaadnay dadka Soomaaliyeed inaysan fikir karin waxba soo saari karin marka annaga halkaas dhignay waxba dadka lagu dhaganaan dadka Soomaaliyeed wax soo saar way leeyihiin waxa kaliya ka maqan dhiirigelintii aan dhiirigelino dadkaani aan dhiirigelino السلام عليكم ورحمة الله وبركاته